si loo xoojiyo doorka wacyigelinta bulshada ay kaga jiraan abwaaniinta iyo fanaaniinta ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre kulankan la qaatay qaar kamid ah hal-abuurada ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana ugu muujin lahaa in dawladda Soomaaliya ay og tahay kaalintooda. waxaan idin sheegayaa aniga iyo madaxweynuhu inaan aqoonsanahay doorka aad ku leedihiin bulshada. waxaan kaloo idin sheegayaa haddii aan la idin siin doorkiina inay dib noqonayso dalka in dib loo dhiso. waxaan markaa ku bilaabi doonaa inaan qaadano taladii uu Cabdulluhna siiyey oo ahayd yaanan kala raagin aan isku badnaano. kulanka oo ka qabsamay xarunta Akademiyadda Fanka iyo Suugaanta oo uu soo qaban qaabiyay Cabduqaadir Xuseen Nuur Maax ayaa waxa goobjoog ka ahaa abwaano iyo fanaaniin ka kala socday hobolada fanka ee dalka. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaana warbixino ka dhageystay qaar kamid ah abwaaniinta iyo fanaaniinta taasoo la xiriirta caqabadaha haysta si ay u qaataan doorkooda wacyigelinta bulshada oo ay lafdhabar u yihiin. mudane ra'iisul wasaare waxaa sharaf noo ah inaad noo dalabto kulan ay ku kulmayaan golaha abwaanada oo horkacaya fanaaniinta Soomaaliyeed. nin wax dila haddii aan la dilin ila iska sii daayo waa inuu dilkiisa wataa la dili waay ana la maagay haadon maqashii bulshada haddii mawluhu yiraan muddada waa saa dambe imaam madasheena guud meeshay taal doorashadu nasiibkaagana ma gow miyaanay doow ahayn maxaa lagu diidan yahay ma dhiigeena macaan arrimaha xanuun kale xarumaha shisheeyaha shacabkeeni lagu xidhay xogogaal u kurgalay xilkasnimo wadaninimo xabsiyada ka soo garay xamarkeenay baa jira kuwa jiraan oo aday dawo ka rabaan kuwa mushaarka yaro aday kordhin ka rabaan kuwa baaga muddada oo aday shaqo ka rabaan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay fanaaniinta iyo abwaaniinta ayaa xusay in hal-abuurka ay hormuud u yihiin fanaaniinta iyo abwaanada looga baahan yahay inay u istaagaan sidii bulshada looga baabi'in lahaa qabyaaladda oo dib u dhigtay sharafta ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabnaa in suugaanta lagula dagaalamo qabyaaladda si dib loogu yagleelo qarannimo cusub. waxaan rabnaa inaan suugaanta uga hortagno kala qoqobnaanshaha oo aan uga shaqayno midnimada iyo soo dhaweynta ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabnaa inaan suugaanta ku damino dagaalka iyo colaadaha oo aan uga shaqayno dawladnimada iyo dib u heshiisiinta. waxaan rabnaa inaan suugaanta uga shaqayno inaan ku kala soocno xaqa iyo baadilka. waxaan rabnaa suugaanta inay noqoto meeshii aan runtii isugu sheegi lahayn oo aan isaga qaban lahayn kuwa ka shaqeeya qabyaaladda iyo qarandumisnimada. waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed kulligeed ugu sheegno suugaanta inuu dhammaaday waqtigii qabyaaladda. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa mar kale xasuusiyay fanaaniinta iyo abwaanada inay yihiin kuwa jihayn kara bulshada isla markaana ay muhiim tahay inay u iftiimiyaan kuwa doonaya inay dib u dhac ku sameeyaan dalkeena si uusan horumar u gaarin. haddii idinku aadan bilaabina inaad dalka jihaysaan haddii aadan bilaabina kuwa raba dan gaara inay ka shaqeeyaan inaad runta u sheegtaan haddii aadan u sheegina inay ku dhowaad 30 sano oo qarandumisnimo ah nagu filan tahay haddii aadan u sheegina dunida inaan ka harnay inaanan u aqbalayn in carruurteennuna ay dunida ka haraan haddii aadan u sheegina mustaqbal cusub ayaan rabnaa inaan dhisno cid u sheegaysa malaha. kulankan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la qaatay abwaaniinta iyo qaar kamid ah fanaaniinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah qorshaha lagu xoojinayo ama lagu soo nooleynayo barnaamijyada wacyigelinta ay horseedka u hayeen hal-abuurka Soomaaliyeed kaasi oo door sare uga jiray xilliyadii bariisamaadkii oo dalkeenu uu ka mid ahaa dalalka ugu horumarsan Geeska Afrika. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.